munaasabadan uu maamulka gobolka Banaadir uu xarigga kaga jiray waaxda wajeer ee degmada Kaaraan gobolka Banaadir ayaa waxa soo qabanqaabiyay maamulka degmada Kaaraan iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir dadweyne aad u fara badan ee ka kala yimid waxyaha ay ka kooban tahay degmada Kaaraan haweenka ku dhaqan degmada Kaaraan kaasi oo lagu qabtay xarunta waaxda wajeer ee degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Yalaxow oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in dadka ku dhaqan degmada Kaaraan ay diyaar u yihiin mar walba shaqeynta horumarka degmadooda isagoona tilmaamay in dib u howlgelinta waaxda wajeer ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka degmada Kaaraan shanta waaxood oo maanta halkan ka soo qayb gashay waxaan rabnaa waqtiga oo noqrada awgis waaxda wajeer oo dayactirkeeda maanta noo soo gabagaboobay oo ku sameeyay duqa magaalada Muqdisho oo noo furay oo xarigga nooga jaray waxaan rabaa marka hore ugu mahadceliyo gobolka Banaadir oo mashruucan hirgaliyay waxaan rabaa inaan dhaho gobolka Banaadir waa maatayeen waaxda wajeer iyo waaxihii kalaba laakiin maanta gaar ahaan waaxda wajeer aan taaganahay oo 25 sano burbursaneed qaarkeedna lagu nacafinaayay dadka reer Kaaraan qaarkood ku nacafinaayeen markii loo baahday si dhagafudeed ah oo baxeen ma ahan dad oo nabadgelyo markii loo baahday oo leeyahay waaxda waaqisa qaarkood xataa waxay leeyihiin guri saan u qaata macnaha dayactirta la inta badan dhismahan marka waa dayactir gurihii la dhistay ayaan ka dayactirnay alxamdulillah maanta waxaan taaganahay waaxda wajeer oo dayactiray waxaan rabnaa maanta kaloo mashruuca gobolka Banaadir ee dalkooda la magac baxay mashruucaas gobolka Banaadir aad ugu mahadsan yahay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Aadan Diiri oo xarigga ka jaray waaxda wajeer ee degmada Kaaraan ayaa ku amaanay maamulka degmada Kaaraan iyo shacabka ku nool degmada Kaaraan sida wanaagsan ay ugu wada shaqeynayaan horumarka degmadooda isagoona tilmaamay in laga bilaabo xilligan ay furan tahay waaxda wajeer degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxaan ku faraxsanahay waaxdii afaraad inaan maanta furno degmada Kaaraan waaxda wajeer wixii saacadan laga bilaabana waaxdu waa furan tahay dadweynahana waa lagu shaqeyn karaa waxaan u maleynaa waaxdan sababaha waa wax iska cad waaxaha degmooyinka loo furaayo waa in moogtahay maamulkii hoos uu dago oo maamulka sare ee degmada meeshii lagala soo xiriir lahaa dadweynuhu silsiladaas inay ku socdaan muhiimaddu intaas weeye waxaan rabaa inaan dadweynaha degmada Kaaraan aan kula dardaarmo waa degmada Kaaraan markii la yiraahdo degmooyinka gobolka Banaadir meelaha ugu amniga badan lagu sheegaa waana tahay marka waxaan marka koowaad ugu hambalyeynaa inaad ammaankaas iyo wada shaqeyntaas aad maamulka gobolka iyo kan degmada intaba aad la leedihiin waan kaga mahad celinaa horena ina u sii wadiinaan rajaynaynaa tan kale waxa la rabaa degmadu iyo maamulkeeda iyo dhamaantiin inaad u diyaar garowdiin maadaama maaragtay xilli roobaadkii ugu soo aadan yahay inaad maaragtay u diyaar garowdiin sidii aad nadaafadda degmada iyo horumarkeeda intaba uga shaqay lahaydeen maamulkan ay ku garab istaagi lahaydeen sidii horeba ay ugu garab taagnaydeen maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmahan waday dadaal uu ku doonay inuu ku hormariyo degmooyinka gobolka Banaadir Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.